cashirkeena maanta insha Allah cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sheeko gaaban oo u dhaxaysa laba qof sheekadan waxay u dhaxaysaa laba wiil oo walaalo waxaan dhahaynaa short story of two brothers the short story of two brothers short story of two brothers waa sheeko gaaban oo u dhaxaysa laba wiil oo walaalo ah waxaan dhahaynaa one is upon a time xilliyada ka mid ah waxaa jiray two brothers laba walaalo ah who lived kuwaasoo ku noolaayeen in the rural area dhul miyi ah without city oon magaalo lahayn they used waxay isticmaali jireen to raise inay barbaariyaan ama dhaqdaan ama isticmaalaan a livestock xoolo such as sida camel geel goats riyo ama aridhe and cows iyo lo ama saco one of the year sanad ka mid ah sanadadoodii waxaa jirtay asava drought abaar daran ayaa jirtay taasoo destroyed baabi'isay all the livestock xoolihii oo dhan and a small number of a camels remained from the livestock neefaf yar oo geel ayaa ka soo hadhay xoolihii ayaan dhahaynaa the two brothers labada walaalihii could not get ma awoodin inay helaan enough milk caano ku filan or meat ama hilib from the livestock they look after ay dhaqanayeen ama ay raacayeen it ayada oo xoolihii and there is no other food to be eaten mana jirin cunto kale oo nimankaasi ay cunaan waan garanay the younger brother kii wiil labada walaalaha kii yaraa told ayaa u sheegay his elder brother walaalkiisii weynaa we are dying waxaynu u dhimanaynaa of hunger and thirsty hunger oo gaajo ah iyo thirsty oo haraada so sidaa darteed we need waxaan u baahannahay food cunto and water iyo biyo to survive ourselves si aan naftaanada ugu badbaadno cunto iyo biyaan u baahanno u dhahay it is true buu dhahay waa kii weynaa dabcan that we are suffering waxaan la dhibaataysanahay from the drought effect saamayntii abaartu ay nagu yeelatay that caused taasoo sababtay the break out of starvation inay macaluul ka dilaacdo where we are living halka aynu ku noolnahay so sidaa darteed how can we escape sideen uga baxsan karaa escape ka baxsasho cadow aad ka baxsatay waaye it means baahida macaluusha iyo oonku ama haraadku waa cadow escape aan uga baxsan karo from this starvation macaluushan seen uga baxsanaa ayuu dhahay waa garan the younger brother kii yaraa said ayaa wuxuu dhahay younger brother said kii yaraa wuxuu dhahay I think waxaan u malayn the best way we can get survive sida ugu fudud een uga badbaadi karraa amaan ku badbaadi karra from thirst haraadkan aan hanga iyo gaajada is to live inaan ka tagno this areadan ama dhulkan aan joogno inaan ka tagno and try aan isku dayno to reach inaan gaadhno the nearest town magaalada ugu dhow before inta ka hor we die of thirst intaynaan haraad iyo oon u dhimanin ka hor inaan arrintaas isku dayno inaan magaalada inoogu dhow gaari karno waa garanay wuxuu dhahay it is good waxaa wanaagsan to live inaan ka tagno it ayaga oo xoolihii ah dabcan geel yaraay u soo hadhay for the hyena waxaa la dhahaa waraabaha waxaa la yidhaha ama dhurwaaga la yidhaha xawayaanka dhurwaaga la yidhaha xoolaha cuna ayaa la yidhaha because sababtoo ah it is good inaan waxaa habboon buu dhaha ama wanaagsan to live inaan ka tagno it ayagoo ah geela ama xoolaha for the hyena waraabaha iyo ama dhurwaaga inaan uga tagno because sababtoo ah they wasted waxaan ku dhuminay our time waqtiga annagii baan ku dhuminay ama waqtiga inaga dhumiyeen dheh and lead us waxayna noo horseedeen to die inaan u dhimanno of starvation macaluul inaan u dhimanno today in this rural area dhulkan miyiga cidlada inaan macaluul darteed u dhimanno ayay noo horseedeen ayuu dhahay dabcan
wuxuu ka dayrinhayaa xoolihii ay dhaqanayeen marka insha Allah intaasaan ku daynaynaa sababta aan u dooranay cashirkeennan maanta inaynu ka samayno sheeko gaaban waxa weeye in aan isku dayno inaan qori karro sheekooyin gaaban oo wax ku saabsan xoolaha miyiga magaalada waxbarashada wax walba leh marka taas ayaan u doortay maanta inaan soo gudbiyo sheekadan gaaban insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan qayb labaad iyo saddexaad iyo afraad ka samayno waxaan idinka mahad celinayaa dhageysigiina aad ayaan idin salaamayaa waqtigu ha idin wacnaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh